الله يوسف إنه انقلابك وكقريب قاطو waxay ahayd in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu iibiyay dhulkii NFD la oran jiray heshiiskii ka dhacay caruusha ee Kenya iyo Soomaaliya barigaasi dhexmaray haddii aynu dib u jaleecnana heshiiskaasi xukuumadda cigaal wixii ay doonaysay ama heshiiskaasi ay ku gaadhay waxa BBC-du maxamed ibraahim cigaal ay ka wareysatay isaga oo jooga magaalada Kampala caasimadda waddanka Uganda 16 bishii Disembar sanadkii 1967 waxaana wareystay wariye markaasi ka tirsanaa BBC-da oo la oran jiray Ronald Robson waxaana su'aashiisii ay ahayd Your Excellency, your success in winning support for the Somalia-Kenya agreement has been hailed as one of the political feats of the year in Africa. What would you say was the most difficult part of its accomplishment? waxa uu yidhi mudane guusha aad ku guulaysatay taageero inaad u hesho heshiis dhexmara Soomaaliya iyo Kenya waxa si cad loogu amaanay inay ka mid tahay guulaha siyaasadeed ee ugu waaweyn ee Afrika sanadkan ay gaadhay maxaad ku tilmaami kartaa qaybta idinku adkayd si heshiiskaasi ay u gaadhaan maxamed xaaji ibraahim cigaal oo su'aashaasi ka jawaabay kagana jawaabay af Ingiriisi iyo af Soomaaliba waxa uu yidhi The memorandum of understanding agreed upon at Arusha between Somalia and Kenya provides only for the basis for both countries under the mediation of Zambia to get together over the conference table in order to try and find just solutions to the problems between Kenya and Somalia. I would like to emphasize that so far, apart from resolving minor differences, there has been no discussion as yet on major issues. Memorandum kii Arusha la iskaga afgartay Kenya iyo Soomaaliya iskaga afgartay wuxuuna ahaa asaaskii ama gogoldhigii oo u gogoldhigaha wada hadalkii labada wadan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wada hadal arrin wixii khilaafaadii dhaxyilay inay ku dhameystaan waxa doonayaan aad u cadeeyo xogaha ki yaraay khilaafaadha mooyaan arrinkii jawharada ahaa ee la isku hayay wali shaqadiisii lama bilaabin idaaradii saddexda wadan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclahay maanta inaan idin sheego in maantadan dhismaheediina la isku afgartay arrimadii ay ku shaqeyn lahayd iyo waxa ay ku shaqeyn lahayd maanta la dhameeyo la isku la dhameeyay marka waxaan filayaa in haddaba imika shaqadii arrinkaas la guda geliyaa wuxuu noogu adkaa anagu haddaan reer Soomaaliya waxay ahayd inaanu ka raadino ama ka qancino Jomo Kenyatta inaanu arrinkan inaga dhab yahay oo aan nabad wixii mashaakil naga dhaxeeyaan wax inaan nabad lagu kala garbaxo inaan doonaynay taana waxay tahay haatan inaanu ka dhaadhacinay shaqadii arrinka la bilaabay. Is there now complete accord in your parliament and in the Somali Youth League on the need to have friendship with your neighbors? wariye Ronald Robson waxa kale oo sida aad maqlayseen uu cigaal weydiiyay in baarlamaanka Soomaalida iyo xisbiga SYL oo talada hayay ay si buuxda isugu raacsan yihiin in saaxiibtinimo lala yeesho dariska Allahu naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa berigaasi isagoo arrintaasi ka jawaabaya oo markaasina haddana af Soomaali isla markiiba ku turjumaya uu yidhi The Somali National Assembly and the SYL party are in complete accord with the policies of the government in connection with our relations with our neighbors. This was evidenced by the resolution adopted by the National Assembly after an exhaustive debate which resulted in the government policies being given an overwhelming support. Baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga wadanka maanta xukunkiisa gacanta ku haya aqlabiyadda lihi SYL labaduba waxay maanta dawladdu siyaasadda ay ku shaqeynayso ee dadkan jiiraankan ay ku saabsan labaduba raalli bay naga yihiin waana nagu barbartaagan yihiin waxaana taa cadaysay maalintii dhaweyd motionkii baarlamaanka laga baasgareeyay ee aqlabiyad weyn la isku raacay in lagu aydo dawladdu wixii ay qabatay. What is the attitude of the people of Somalia? waa maxay aragtida ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan arrintaasi ayuu wariyuhu weydiiyay waxaana uu kaga jawaabay Somalia having a working democracy, the attitude of the Somali people is reflected by their elected representatives in parliament, and therefore the measure of support which parliament has given to my government recently over this matter constitutes a mandate from the people. dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye dad dimuqraadiyad ku dhaqma oo dhaqankooda iyo noloshooda ay ku xiran ay tahay marka raqabada shacbiga Soomaaliyeed waxay tahay waxa had iyo jeer muraayad ah oo ay ka muuqataa dadka ay doorteen ee baarlamaanka ku jira kolba waxay baarlamaanka taayid ama maxay hayday diidmo waxay kolba ka cadeeyaan halkaas raqabada shacbiga Soomaaliyeedna ay la socotaa marka
baarlamaanku maanta dhaweyd ta'yiidii uu dawladdeeda siiyey waxay ahayd ta'yiid shacbiga Soomaaliyeed ka socota laakiin ta'yiidda wuxuu lagu siiyey waxay ahayd oo si cad waliba loo cadeeyo lagu siiyey waxay ahayd wanaagga iyo walaalnimada aanu doonayno in mid nala garaysay nala aqoonsan yahay oo dadka aanu ka doonaynay maanta jaarkeennii iyaguna intooda ay gacanta soo fidinayaan oo ay walaalnimada iyo wanaagga ku nugula dhibgalayna doonayay inay yihiin ayay ahayd lagu siiyey intii marka dawladdeedani ay xukunka qabatay waxaanu aad iyo aad intii ka itaalka yaanu isaga dhowray inaan naga soo baxaan hadallo loo tarjuman karo inaanu nahay dal aan lahayn oo ku duulaana inay naga soo baxaan waxaasaan la isdiidsin karin sababta ay cilaaqaadka labada wadan ku xumaadeen waxay ahayd ta'yiidda dawladda Soomaaliyeed had iyo jeer ayidsan tahay dadkaas reer NFD raqbadooda ah inay helaan xaq taqliil masiir inay helaan waxa marka anaga diiladaydu maanta tahay guddidaas saddexda qolo ka dhisan ee maanta la dhisay inay u guntato hadal arrinkaas oo ay iyadu noqoto tii lagu gaaro sidii loogu heli lahaa xal dadkoo dhan raali geliya oo lagu gaaro maxay ahayd heshiis wanaagsan laga gaaro arrinka sidii mudakaradii ka soo baxday caruusha ka soo baxday ay ku qoray barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku dhayahay tan iyo kulantideena dambe sida iyo nabadgelyo